waxaa kamid ah uuriyaal ama xanuun ka qabto qaybta hoose caloosha taasoo ay gabadha aad uga cabanayso si xanuunka looga baabi'iyo. haddaba waxaad asalaamu calaykum, maantana waxaan idila wadaagi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay naasnuujinta. Sidaa ognahay waa ilaahay wuxuu ugu talagalay cunugan 9 bil caloosha ku jiray inuu quuto ama uu cabo si uu ugu noolaado. maalmaha hore waxaa ka buuxo wax loo yaqaan dambartaasoo ah wax aad muhiim u ah cunuga maalmaha hore in la siiyo ay tahay. waxaa ka buuxo protein, waxaa ka buuxo wax loo yaqaano waxyaabaha jirka ka difaaca infectionka, waxaa ka buuxo nutrient sida vitamin D oo kale ka buuxo. faa'iidooyinkiisa hadda hore u galno, waxaa fiican in cunuga marka hore 6 bil oo hore la nuujiyo naastos nuujinta. waxaa waa in 6 bil oo hore aana wax kale la nuujin, kaliya la siiyo naaska caano iyo biyo iyo wax gasac ku jira iyo caano lo'on aan loogu darin kale. faa'iidooyinka cunuga uu ka helaa waxaa kamid ah maalmaha hore cunugan ma yaqaano muddo afka waxba kama qaadan, caanaha la siiyey calooshiisu ma dhibayaan, laakiin wax kale haddii la siiyo calooshiisa dhibayaan oo hadhow ku shubmaya. faa'iidada labaad oo laga helo waxaa waaye caanahan waxaa ka buuxa protein, waxaa ku yar sokorta iyo nutrient. faa'iidada kale cunuga ugu jirto waxaa waaye cunuga wuxuu yeelanayaa dhaylo qurxan aan cayil ahayn. wuxuu kaloo ka faa'iidaya waxay ka hortagayaan naaska markii si sax loo nuujiyo infectionka ku dhaca dhagaha, infection ku dhaca sanbabada, infection ku dhaca caloosha ayuu ka hortagayaa iyo infection kale badan. faa'iidadaas waxay ka yareynaysaa in isbitaalka aad tagto. waxay kaloo faa'iidada kale waxaa waaye caanahan waa raqiis oo adiga ay kugu jiraan oo lacag ayaa ku safe gareymayso, cunugaagana caafimaad uu ka helaa. faa'iidada kalena waxaa waaye cunugaaga hadhow ciyaalka kale uu kaaga dhow yahay oo aan naaska nuujinin, sababtoo ah wuxuu leeyahay xiriir fiican ayuu kula yeelanayaa. faa'iidada kale waxaa waaye cunugaaga uu ka caqli badan yahay, ciyaalka kale uu ka maskax badan yahay. baaritaano ama research la sameeyay waxaa la ogaaday ciyaalka naaska si sax 6 bil loo nuujiyo oo wax kan aan la siin inay ka fiican yihiin ciyaalka kale ee ka maskax badan yihiin, ee ka caqli badan yihiin. marka intaas uga tagno faa'iidada cunuga ay u leeyihiin caanaha ama naasnuujinta, faa'iidooyin badan ay u leeyihiin hooyada ayaa jira, laakiin waxaan kusoo koobeynaa gabadhu markay dhasho oo isbitaalka la geeyo sariirta, waxyaabaha ugu horeyso aan aragno haddaan dhaqaatiirna ay ka cabato ogaataa waxa kaliya ee xanuunka kaa baabi'i karo inuu yahay inuu cunugaaga si degdega naaskaaga afkiisa u gelisid oo naaska nuujisid. sababtoo ah markaas waxaa lasoo dayi doonaa hormoon loo yaqaano oxytocin, kaasoo ku keeni doona xanuun baabi'in oo minkaagana yareyn doono. faa'iidada labaad ee tahay waxay tahay minka marka cunuga kasoo baxayo wuu weyn yahay, sidaa daraadeed markii naaska oo cunuga si fiican u nuujisid maalmaha soo socdo minkaaga si tartiib ayuu yaraa doonaa. waxyaabaha oo ka celi doono waxaa kamid ah ama oo ka hortagi karo waxaa kamid ah kansariska ku dhaca naasaha, kansariska ku dhaca ugxaanta. haddaba waxaan kugula tali lahay hooyo inaad cunugaaga nuujiso si caafimaad uga helo, adigana caafimaad uga hesho. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.